waa hagaag daawadayaal waxa aan ku sugannahay xarunta baarlamanka ee dowlad goboleedka Minnesota oo ku taala magaalada St. Paul ee caasimadda gobolkani waxaa soo gabagabowday oo maanta la qabtay maalinta Soomaalida Minnesota oo gobolkani laga xuso waa sanadkii saddexaad ee xiriira ee laga xusayo gobolkani ee Minnesota waxaana ka soo qayb galay Soomaali fara badan oo xataa ay ku jiraan madaxda Soomaalida ee laga doorto gobolkani Minnesota iyo madax kale oo gobolkani Minnesota sida maayirka magaaladani St. Paul iyo xeerlaaliyaha guud ee gobolkani iyo madax fara badan oo guud ahaan gobolka Minnesota waxaana qodobada ugu muhiimsan ee lagaga hadlayna waxay ahayd sidii Soomaalidu ay uga gaashaaman lahayd weerarka siyaasadeed ee xagga afka ee uga imanaya qolyaha cunsuriyiinta ee ugu horeeyo madaxweynaha dalkani Mareykanka Donald Trump. Awaladeer telefishinka STN St. Paul, Minnesota.